لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخواني إن شاء الله تعالى وحير كهد دونا موضوع ليلى هذا الغفلة قف مقن صبحي بو كلها ما أنت رمب صوشقيا هبينكي بو دعا وسيحدا صبحي نبو كعا نلشي سوى وساسبا الغفلة متكلنا وحوي اسكول بو آذا وكيما دا هوماك بو كشقيا وسيحدا صبحي اسكول بو آذا ومقنيه غافل عن الآخرة wuxuu ka maqan yahay aakhirada ka dambaysiyo sheekadaaba waa ka maqan yahay qofkani mid kalena waxa weeye waa oday retire oo ma shaqeeyo laakiin maanta oo dhan maqaayadahaas uu ka sheekeeyaa fadhi ku dirir buu ku jiraa suu soo taagan yahay buu yimaadaa una seexdaa haddana berri subax halkii buu aadaa alghaafil gabar kalena gurigay joogtaa carruurteedaasi maanta oo dhan daba wareegaysaa marna telefoon baa diraysaa say saa u leedahay bay seexataa haddana berri halkan bay kasii bilowdaa غافل حوي قف مقن أرنت أيضا وأرن خطيرة رمتينا قرآنك وقتي صحابة أجوبوا عنانتي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا لعنانتي أولي لهم حاد عقل بيني ووحو حسوسا لا إياهي وأخو شوع لا إياهي والآخر أقام رقون لا أذهي أو إلا إذن وصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي أقام مخناتك عين دد في عنيهين كورنا نوع مانتا 2005 جوجنا او مرايكن كو دحنول انتاد u malaynaysa inaan qaflo ku jirno Allahu akbar بلد الغفله aan joognaa beledkan waa beled aan islaamka ilaahay waxa looga ma talagalin sidiisa waa boos ba kuma leh ilaahay in la caabudo aakhira in la xasuusto naar in laga baqo janno in loo shaqaysto system kaaba beled dhowr milyan oo qof oo system kaaba 300 milyan oo qof system ka ilaahay ugu jirin wax la yiraahdo iyo shaqayntiisa baynu dhaxnamay walaalayaal marka cudurkan waa cudur inagu xididaystay una baahan in badan in laga hadlo runtii waxaan idin xasuusinayaa nin la dhihi jiray Ibrahim ibn Adham oo nin cajiib ah oo culimadii fiicnayda muslimiinta markii dambe noqday yaa wuxuu soo maray noloshan qaflada ah aan hadda ka sheekeynayno taqriiban waxaan maraynayaa wuxuu ku baagnaa 400 oo sano markii nabiga laga joogo sallallahu alayhi wasallam meelahaas aan maraynayaa kulli qarnigii shanaad oo haban malayn ee hijriga yaa ninkani cudurkan hadda inaga haysto oo kale ee uuna qof subaxii tu gaari furaha galiyo iska dhaqaaqaya habeenkiina soo dheelmanaya seexanaya berri subaxiina halkan ka sii istaaraya cudurkaas oo kale ku dhacay waa cudur dawo u baahan inagana waa basharafba ninku inuu waagu bariyo oo shaqo aado oo maanta dhan ku maqnaado habeenkii soo daalanay waa doos seexda haddana berri halkii ka sii aado hebel wallahi waa nin raga ugu shaqaystaa waana cudur dawo u baahan laakiin waxaan maleynayaa wuxuu sharaf u noqday markii la barbar dhigo kuwa kalaabiyada iyo dhex taagan meelaha kuwaas markii loo fiiriyo yuu dhaamaa oo ugu yaraanta adduunyadiisa u shaqaystaa laakiin xagga islaamka markii laga fiiriyo waxa weeye qof yaclamuuna ظaahiran min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun adduunkii bay daba ordayaan oo wax ka garanayaan aakhirana war kama hayaan buu ilaahay dadkaas Ibrahim marka ibn Adham wuxuu ahaa nin booliis ah oo taariku salaada oo khamriya cab ah oo dadka dhaca oo dadka laaluush ka qaata oo dadka dulmiya wuxuu yiri wax uu qof uu sameeyo oo dhib oona sameeyeen ma garanayo waxyaabaha cajiibka ay soo maray buu habeen anoo gurigayga ku jira yaa safar magaalada soo galay yaa soo kormaray buu guriga oo sheekaysanaya markaas waxay dhaheen buu wariyo magaalada hadda habeen baan galaynaa kowdhahay ninkii dhibka badnaa Ibrahim ibn Adham waa joogaa armo meelaha inagu qabsadaa anu gurigayga ku jira buu waa soo rawaxayo laakiin dadka safarka xataa meesha maraya magaalada soo galaya waxay yaqaanaan
nin ibraahim ibn adham la yidhahdo dhib badanoo magaalada jooga oo haddana shaatigii booliista qabo dadka xidhxidho oo ku rabo dilo oo ku rabo kufsado oo ku mufsid ah taariku salaadna saas baan iska ahaan jiray wuri ilaa 40 jir markaan gaadhin weynaaday yaa wuxuu yiri waxaan isla warnay sidan kuma jiri kartid ma ilmo iska yeelatay aakhira iyadoo uma fakarayo hal ilmo bal madxuun arur adashido reer iska guursatay waxaan kale faa'iido ma lahan reer baa iska guursaday wuri gabadh bay dhashay gabadhii aad baan u jeclaaday waqtiga ugu fiicnay iyadoo ku jirto carruurta loogu jecel yahay 2 jir iyo marka intay tahay socod baratay baabada igu hayso aad u jeclaa iyo habeenka dambe iga geeriyotay gabadhii aad baan uga murugooday waan seexday habeenimo riya igu timid buuri gabadha yareed iyadoo aayadan aqrinaysa alam ya'ni lilladina aamanu an takhsha'a qulubuhum lidhikri llahi wama nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آيات وحيلا ذحي ورمي إذا أنقارن وقت قلبيون خشوع مؤمنين ود إلهي حسوستان ود إلهي درتي وإيدان ود إلهي درتي وحقتك تحارانا ود إلهي درتي وحخير أسميسو آيات وحيلا ألم يأني ورميان لقارن ميين دوان وقت وقلبيون اسبدلو وغفلذا إيا مقران شهر أتكسوا بحضه mise waxaa kugu dheeraaday ama idinku dheeraaday sidii dadkii idinka horreeyay kristanka iyo yahuudi iyo inta diintu ku dheeraatay qalbigoodu uu ingegay oo kale faqasad quluubuhum saas oo kala noqoteen xul hurdadii baan ka soo booday sidii qof waxaa noqday buu ilaa qafladu waxa weeye qof ma qabaata in lagu toosiyo aad u baahan tahay walaa wartoos aakhira jirtee xageed jirtaa aakhira goorma kugu dambaysay indhahago ilin ka timaado ilaahay dartii oo goorma kugu dambaysay subhanallah hurdadii baan ka soo booday bal waan qubaystay bal waxaan isla salaad bilow waxaan soo diyaariyay subaxna isla salaadii subaxaad waa 40 sano kadib iyo salaad subax aadaya masjidkan tagay imaam shaafici baa dadka tukanayay uu miska imaamka wuxuu aqrinayaa buu alam ya'ni lil ladina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri llahi wama nazala min al-haq iyo salaat al-fajr billahi imaam shaafici Allahu akbar wuxuu yiri qiraa'adii inta imaam shaafici waday oo hin baan la wadi waayay oo hin wixiisii baa xasuustay baytarigiisii baa la jaad gareeyay indhahan qofta xunun aad ku arkayso gacantana qofka xunun ku salaamayso service-kan uu yeesarta aad ku haysid gaalkan u khidmaynayso noloshan makaaniga aad ku jirta aad maqantahay markii laga toosiyo waa inaad tiraahdo ha away islaamkaygii away diintaydii away xageen joogaa waa riyo ninka Soomaaliga ah muqdisho ka yimid caawana ku nool meesha Phoenix ana waxa isdhihi kara xaqiiqo ma waa riyo waa wax riyo lagu matali karo soo riyada ma ana iyadoo Soomaaliya joogin dad ka duusha habeenimo yaad ma ka imaanaysa ka soo laabanaysa inteena meesha fadhida waxa laga yaabaa nin ku fakiray halkan aad imaan inuuna jirin inteena meesha fadhida in badan oo kamid ah waxa laga yaabaa qof ku fakiray halkan aad imaan inuuna jirin marka waa riyo لكن ريالي بعد انت حقيقة انه نقطة يا بنسكو إلوني بقى خلاص اخواني ابراهيم ابن ادهم وحاد دويسي ايضا دويسي الهي كدوي الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما علمتي بقى بحول انت بوليسكي كان رخصيستي وان شيطان لماذا وانا كبحي يا وحول وحبر شو جيت سبي مركو قصة الشيخ ايو وامرو الشيخ يهي او كتب اغريو او حرب انا وحكا اخرسة ليه يهي يوم عرنا الله كميدا مركز سوا فريستان يقول ما أنت درسي إذن ما أقرنايه وحنا إذن أقرنايه الله يفكيجي نولا شيء ما كان سوق سنة كشيء ما كان وحبر شرب بالله يقول إن دينت أسوء جيت سنة يو إن نولا شيء إذا بدل يا أفرتن جير بنك وينه ما أنت الشيخ وأنا يقول كتبت أتكلم جيستان إذن مرور بقى يضو لحد نجير كنك أو أطالع لما تنجير كويلك أهنا وأطالع قبل سيدي تنجير كأو أطالع هو يذا أفرتن جير كأو أطالع ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلهي وحن كبرينا سيدي إبراهيم بن أدهم أيوب بدشين أنا قرأنا بدش غفلة إخواني كرك علماء السورة وهي حستي هذا وحيدها وقفك أو إلهي حسوس الشديسة هي آخر حسوس الشديسة كما قال حضور حسوسنا وحسوس وبلف قريسية لكن حسوسنا ولا شيء سوى حكب بدشة ما حسوسنا أد مركز مرايكا كمرتوح الأركز عدد كلها يا شيخ جمعة يهديس كسها تشقضوا جمعة المسكت دين كرا